كانوا كسولو سعيد عباس waa dhawahay alxamdulilah aad baa u mahadsantahay cawilo baqeyd waa tahay ugu horreyn waxaad nooga warbixisaa tababarkaagii ay ku siiyeen xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA iyo kulamadii kala duwanaa ee aad ku qabatay magaalada muqdisho ee qayb ka ahaayeen tartanka gobolka banaadir niyo alxamdulilah waa ku dhawa TV-ga waan kaaga mahad celinaya maadaama barnaamijka maanta ay ugu casuuntay seminaarka aan qaato waxaa la MA course la seminaarka ugu weyn ee Soomaaliya la qabto waxaana qabtay hay'adda dunida ugu weyn ee FIFA ay kubadda cagta marka seminaarkaas wuxuu socday 7 maalin socday waxaa marka hore la iska qaadaya physical test waxa la dhahayo oo seminaarka lagu soo gudbayo marka hore qofka qayb galay physical testiga marka waxaa lagu kala qaadaa orod dheer oo 75 mitir ah iyo mid 40 mitir ah aan iska qaadaa inta orodka aan la gelin ka hor nooca caafimaadka waa la iska baaraa marka seminaarka aan soo qaatay seminar caalami waaye waa kii ugu horreeyay oo aan qaatay inta saddexda ka horreysana waxay ahayn referee UD ahayn laakiin sadeertan seminaarka aan qaato waa seminar MA course lahayo waa seminar dalka oo kan ugu sarreeya oo la qaato waata inta marka laga soo laabto garsoore Saciid Cabaas waxaad ka mid tahay garsooreyaasha u diiwaangashan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed dhanka kale waxaad qayb ka tahay garsooreyaasha Jubbaland tartamada kala duwan ka qabta maxay kaaga dhigantay inaad xiriirka Soomaaliyeed garsooreyaashooda qayb ka noqoto niyo aad baan ugu faraxsanahay wallahi inaan ka mid noqdo aad baan ugu faraxsanahay haddeertan waxaa ogeed waxaa soo gabagaboway tartankii degmooyinka gobolka banaadir qeybaan ka ah ciyaaro badan aan qabtay oo ay ka mid tahay iisha wadajir iyo hiliwaa wadajir hiliwaa wuxuu ka mid ahaa kulamada ugu adkaa tartankaasi in lagugu aamino dabcan wax weyn bay ka ahayd xagga xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxaa ka mid ah in lagu aamino aniga training fiican aan qaatay tababar fiican aan qaatay waa la iisha baratrigareeyey maxaa la arkay inaan ciyaartaas ku habboon aan qaban karo sidaa darteed lagu aaminay maasha Allah ciyaartana si fiican ay kusoo gabagabowday hal eber ku dhamaatay wax roos u baxay ma lahan waxaana badisay degmada hiliwaa waayahay intaa marka laga soo laabto adiga ahaan dabcan waxaa tahay garsoorihii ugu horreeyay oo reer Jubbaland ah oo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo waliba FIFA ay aqoonsato xirfad ahaan marka loo eego waxaad ka mid tahay garsooreyaasha Jubbaland marka laga hadlayo kuwooda sida weyn uga dhex muuqda horey xiriirka Jubbaland horar tababarro kala duwan oo uga helay ma jira marka laga reebo mid Hargeysa loo aaday oo qaar ka mid ah garsoorku ay aadeen laakiin kan waxa uu uga duwanaa waxaa weeye in FIFA ay diiwaan gashanaysay garsooreyaasha xiriirka Soomaaliyeed ay iyaguna dhankooda diiwaan gashanayeen adiga ahaan marka inta laga soo laabto diiwaangalka FIFA iyo inaad ka qayb noqoto xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed xirfadaada heer intee lag bay gaarsiinaysaa niyo wallahi tar aad baa ugu faraxsanahay aniga waxaan jeclahay garsoorka inaan tar heer ka gaaro ilaa international referee aan ka noqdo bariga bartamaha ciyaaro ka soo qabto aad baa u tar rajadeeda iyo hamigeyga tar aad buu u weyn yahay waxaana aad tar ugu faraxsanahay inaan tar seminar noocaas oo kale aan ka qayb galo aan ka matalo gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan Jubbaland inaan u matalo aad baan ugu faraxsanaa marka waa dhiirigelin fiican ay isii siinaysaa inaan tabaradaas oo kale aan ka qayb galo ama ciyaaraha Muqdisho oo kale heerarkeeda kala duwan inaan qabto aad baan ugu faraxsanahay waayahay markii la guda galo ama la qabanayo mid ka mid ah tartamada ka dhacaya magaalada Muqdisho oo kale waliba tartan degmooyin ay xifaaltamayaan adigii oo ku cusub garsoorkii in garsooreyaal hore u jira lagala dhexbaxo dabcan way adag tahay mararka qaarkood waxay taasi qayb ka tahay nasiib iyo xirfadaada oo ah mid wanted ah oo ka duwan gudahan garsoorka kale adiga markii lagu doortay inaad kulanka dhexdhexaadiso ama kulanka kugu horreeyay ee tartanka degmooyinka gobolka banaadir adiga ahaan dareen noocee qaaday wallahi dareen zaid habeenkii la soo waxa la noo geemkaas ku qoran tahay ciyaartan horta waagaas waa waxay 8 saac ee bilowday kulanka aniga aan qabanayo marka habeenkii markii la soo waco aad baa dareenkii isku bedelay maadaama aniga gobol aan matalayo oo dadkan aan ka madax banaanayo oo gobolkayga aan rabo inaan horumar aan gaarsiiyo qof kasta oo gobolkiisa inuu horumar gaaro jecel yahay aad baa u farxay kulankiina habeenkii dhan waa discussion fiican aan sameeyay waxyaabo bug iyo law of the game si fiican iska akhrinay subaxii tababar fiican aan sameeyay galabkiina waa the game-ka ilaahay si fiican igu dhameeyay ciyaarta waxay noqotay ciyaar si fiican ilaahay igu dhameeyay oo aad loogu wada helay ciyaarta saan u qabtay iyo movementiga iyo go'aanadeedii iyo ii sheegeen managementiga ciyaarta saan u manage gareeyay qaabka maareysay aad baa loo leeyahay bilowga kulanka aad qabanaysay kulanka ay kugu horreeyay aad ka qabatay meel ka baxsan magaalada Kismaayo iyo gudahaan geyga Jubbaland adiga ahaan waxyaabihii ugu horreeyay aad ku aragto waxa ka duwan garoonka muxuu ahaa niyo waxa ka duwan waxa ka mid ah taageeraha aad u badnaa meeshan garoonka Kismaayo waa aragtay taageeradiisa tor aad uma badno oo laakiin ka sportiga Kismaayo tor aad buu u fiican yahay laakiin xagga waxyaabaha environment-gaas iga saameeyay dhiirigelinta waxa ka mid ah meesha tor waa
meel caasimadii waa naga baabulation badan tahay aad iyo aad waxaa ciyaarayna ciyaaro degmooyin aan degmo kastana dadkeeda dhanaan garoonka imaanaya oo soo buux dhaafinaya aad iyo aad waxaa ka mid ah horta taageerayaasha wax uu saameeyey oo aad taageerayaal fara badan u joogeen waxaa kaloo i saameeyey ii sheeg oo aad ii soo jiitay macallimiin fiican oo instructor oo FIFA u diiwaan gashan oo Soomaali ah oo raggaas aad tayadooda u fiican tahay in ciyaari laga markii kambi dhacdo kala qaladaadka kale lagu sheegayo ama lagu kaalmeenayo motivation fiican aad ka helaysid waxyaabahaas oo kale waxaa lagu caawinayaa waxyaabahaas oo kale ka mid ahaa waxaa ka mid ah garoon uu ii sheeg waxyaabaha kale oo i saameeyay waxaa ka mid ah qorraxda aad u kulleed maalinka ciyaarta gameka qabanayay 8 saac ciyaar 8 saacna weligeed uma barnaan garsooro aan noqdo aad iyo aad waa 9 saac iyo 45 kasma ciyaarada la bilaabaa aad iyo aad xagga waxyaabaha i saameeyay waxaa ka mid ah qorraxda environmentigaas oo aan la qabsan waa beedaas qorraxda aad u kulul ciyaarada kaas aan u darnaa taas igu darneed waayahay waxyaabaha ka duwan ee aad ku aragtay ciyaaryahanada Jubbaland uga ciyaara ama ku ciyaaraba guud ahaan iyo ciyaarihi xagga ka dhacay waxyaabihii adiga ahaan aad dhihi kartay alalahay waxaan adigu kugu cusbaa marka laga soo laabto environmentiga iyo guud ahaan qabashada tartankaas maxaa ka mid ah waxyaabaha horta ka mid ah waxaa waa ciyaartoyda Jubbaland oo kala ciyaaraysa degmooyinka tartanka gobolka Banaadir markii aan maqlo ciyaaryahankan wuxuu ka imaaday Jubbaland camal oo gool u dhaliyay ama laacib waa la farxad gooniyan aan qalbigay ka dareemay maadaama aan xidigahaas ka qayb galay tartanka anigana aan garsooro ka ah oo isku meel aan ka soconay gobolkan aan wada matalaynay waxaan aad iyo aad ugu farxay dad inay horta gobolka Jubbada Hoose Jubbaland inay ciyaartooy fara badan joogaan garsooreelna ay joogaan tayo leh inaysan ahayn gobol macnihi aan boonigeeda u sheegeen boonigeeda aad loola dhacsan yahay waa aragtay tartanka kubadda ciyaarihii gobolada xataa waxaa qaaday Jubbaland aa qaaday marka inuu aad baa ugu farxay in dadkan waxay ka imaadeen Kismaayo ka matalayaan taas waxyaabihii u farxadda badan taas ka mid ah waayahay inta marka laga soo laabto Saciid Cabaas marka la dhaho guud ahaan reer Jubbaland waxaa ku soo dhacay waxaa mid kamid ah garsoorayaasha ugu fiican degmada Kismaayo oo qabta tartamada ugu adag hadii ay tahay dekedaha iyo Argo kale dekedaha iyo isku filan oo kale adoo waliba kooxaha qaarkood soo ciyaareen maxay ku kala duwan tahay waqtiyada lambarka dhexe uga ciyaaraysay kooxihii kala duwanaa himilo dowladda hoose ay ka mid ahayd naadiga kubadda cagta ee dana khaldanayn stars himilo kale maxay kaaga duwaneed markaad kubadda cagta bilowga ugu horreeyay soo bilaabaysay iyo markaad garsooro ku biirtay farqiga u dhexeeya muxuu ahaa niyo aniga hadda garsooro waxaan bilaabay 2016 bishii 3aad marsaan bilaaway waxyaabaha ku kala duwan yihiin waxaa ka mid midna doctor adaab ciyaarayo oo dheeleysa midna waxaa waaye waa garoonkaas dhan adiga xukumo oo managementigiisa dhan iyo wixiisa dhan ba lagala xisaabtamaayo waxaa la rabaa labadan koox inaad cadaalad u sameyso wixii aad soo baratay inaad dadka aan kula dhaqanto waxyaabahaas tiro ka mid ah inkastoo aniga booni aan si dheli karo aan si jeclays inaan garsooro noqdo waxaa ka mid ah inaan macnaheedu dadkayga inaan horumar garsoor ku talaabsiyo oo dadka igu daydaan inaan garsoore isa u baahneen qof duqoobo iyo qof yar iyo qof waxaas u baahneen waxyaabaha iga dhaliyay inaan garsoor noqdo waxaa ka mid ah in garsoorka soo isha Jubbaland horumar fiican ay sameeyaan lagu arkay ishaga garoomada kala duwan ee Soomaaliya in lagu arkay ishaga tababarada ay bixinaysa FIFA oo Muqdisho lagu qabanayo in lagu arko in magaceen uu sare mara aan aad u jeclaa maadaama booniga aan ka keenin waay ishaga inaan gobol matalay iyo wax fiican aan ka keenin waay waxaan rabaa markii inaan garsoorayaasha Jubbaland ha dhan kale aan ka fiiriyo oo horumar fiican ay ku talaabsadaan si in lagula daydo watay inta marka laga soo laabto muddadii dabcan tababarka u joogtay magaalada Muqdisho caasimada dalka guud ahaan indhaha caalamka waxay wada qabanayaan ama indhaha sports way qabanayaan waliba kuwa reer Jubbaland tababaradii kala duwanaa si access-ka u qaadanaysay adoo waliba inta u badan muuqaalo garoomada ciyaarahaba lagu daawaday muuqaalo aad access lagu siinayay oo si wanaagsan u dhex muuqanaysay maxaa ka hortaagan tababarkii lagu soo siiyay aad uga faa'iideyso kuwa halkan jooga iyagu qaarkood ay jecel hadda kusoo biiraan iyo kuwa haddaba ayna garsoorka sii ahaadaan niyo barnaamijkaas waa wadnaa waa ku tala jirnaa hadda casharo badan haynaa law of the game waxyaabo badan laga bedelay waa aragtay sharciga kubadda cagta maalin kasta dambe sabdida laga dhigaa waa buwaag badan laga soo saaraa marka ay sheegeen nimankan hadda joogo iyo aniga oo ka tirsan inaan casharo fiican wada qaadano oo ablood iska dhigno aad baa barnaamijkaas loogu tala jiraa gudoomiyahana barnaamijkaas hadda baryahan si fiican iskala kaashanaynay hadda mar dhow hadduu ilaahay yiraahdi ciyaarahan iskoolaadka ay dhamaadaan waxaan jecelnahay seminar fiican aan qaadano oo management fiican ah waayahay adiga qorshahaaga garsooranimo ilaa intee buu gaarsiisan yahay aniga wallaahi targetkayga garsoornimo meel sare u gaarsiisan yahay in aan noqdaan rabaa garsooro u diiwaan gashan FIFA oo baajka la siiyo international referee aan noqdaan aad baan u jeclahay inaan baradii bartamaha Afrika aan ka soo qayb galo anigoo calanka Soomaaliya matalayo aad baa taas ugu faraxsan rajo weyn aan ka leeyahay dabcan marka kubadda cagta laga hadlayo garsoorayaashu waxay ka mid yihiin waxyaabaha
inta ugu badgan targetka iyaga la saaray maxaa yeelay waxay qabanayaan kulamo kala duwan kulamo kala degan kulamo kala adag hadda inaad El Clasico dhexdhexaad sidoo kale waa wax aad u weyn garsooraha dhexdhexaadina El Clasico waxay qaadanaysaa in muddo aad loo raadiyo inta marka laga soo noqdana sidaas si lamid ah waxaa jira gudaha dalka tartamo noocaas oo kale oo El Clasico u dhigma oo iyagu ah kuwa ugu adag marka laga hadlayo kubadda cagta ee gobolka ama dalkaba kulanka aad is leedahay waa kulanka ugu adag ee aad dhexdhexaadiso xirfadaada garsooranimo ku ahaa niyo kulankii u adkaa aan dhexdhexaadiyo wuxuu ahaa kulan ka dhacay ciyaaraha gobolka Banaadir waa kulankii aan kuu sheegay hadeerta Hiliwaa iyo wadajir ay sameynayseen ciyaareen hal ibro ku dhamaaday ciyaarta oo macallin waa marka ugu horeysay garoonkaas ciyaar aan ka qabtay ahayd waxyaaba ay sameeyeen waxyaabihii ugu dhibka badnaa waxay kamid labada tiimna laba degmo aad u adag ahayeen oo looga cabsanayo koobka inay qaadaan sheegay taageero fara badan garoonka waa joogay pressure aad u weyn ay saarnaa waa kulanka isaamiyay aan isdhihi karo kulanka u adkaa oo aan qabtay kulankaas waa waayahay intaa marka laga soo laabto dabcan kulamadii ugu dambeeyey aad qabanaysa ama kulanka ugu dambeeyey aad qabato dabcan kulan ka dambeeyay xirfadaada xoog soo kordhayay kulanka ugu dambeeyay aad qabatay sidee yahayd xaaladaada garsooranimo iyo waxyaabihii uu kaga duwanaa kulamadii hore ee ka dhacay meesha kulanka ugu dambeeyay aan qabtay wuxuu ahaa Dayniile iyo Kaxdaan qabtay si fiican garoonka waa fahmay jadwalkiisa waqtigii oo ciyaarta aan qabanayno kale oo waqti hore ay bilaawaneysana si fiican oo la qabsaday ciyaartii dambe wax saameyn ama arkin si fiican ciyaartii ugu dhamaatay idan hal ibro ku dhamaatay waxaana badisay degmada Kaxda badisay hal ibro ku badisay Dayniile Kaxdeen ay si fiican Ilaahay waa igu soo dhameeyay marka laga hadlayo kulamada aad ka qabato garoonka kubadda cagta waa kuwooda ugu adkaa xirfadaada garsooranimo ee gudahan gaar ahaan Jubbaland kulamada aad dhexdhexaadisay waxaa inta ugu badan ay ahaayeen kulamada dekedaha iyo isugu hor imaanayeen dowladda hoose dekedaha iyo isku filan dekedaha iyo koox kale Kasiima kulamada inta ugu badan la dhaho waa kuwa ugu adag Jubbaland wallahi kulanka u adkaa aan qabto waxaa kamid ah horyaalka dartan dhamaanay oo tiimka dekedaha ay qaadeen kulanka u adkaa aan qabtana wuxuu ahaa dekedaha iyo aragada waxaan moodaa geemkaas inuu geem oo xasaasi u ahaa oo dekedaha hadii badan lahaayeen inkastoo ciyaartii laakiin every ku soo dhamaatay dekedaha hadii badan lahaayeen koobka inay qaadayeen rajadooda aad u markaas u weyneed nimankan dawladda hoosena waxay u dagaaltamayeen inay kaalinta labaad galaan kulankayga u adkaa isla kulankaas aan qabtay oo tournamentiga hadda dhamaanay kulankaas oo ahaa kulamada aad jeceshahay inaad qabato maxaa kamid ah kulamada marka laga hadlayo kubadda cagta oo kale kulankee jeceshahay inaad qabato marka kulan caalami ah ama kulamo hadii la qabanayo aniga higsigii waxaa waay ciyaaraha bartamaha Afrika inaan qabto aad u jeclahay maadaama hadartan meelahan Jubbaland ciyaar ka soo qabtay Muqdisho ciyaar ka soo qabtay hadda higsigii waxaa waa marka inaan African Cup of Nations ama meelahaas kale heerkaas janjarada saddexaad ku kor lahaa falankeed inaan galaan rabo hadii Ilaahay yiraahdo dabcan waa qorshe fiican waayahay inta loo guda galin African Cup gudaha dalka oo kale kulamada aad leedahay waa kulankii mudnaa inaad qabato kaway waxaan jeclahay inaan qabto horyaalka Soomaaliya Premier League inaan qabto aad u jeclahay Elman iyo Hegan oo kale isha horseed oo kale ciyaaraha adag aan rabaan ana aad u qabto geemka oo aad ku adag inaan qabtaan jeclahay oo horyaalka Muqdisho hadii lahaa isha gobolkeena oo Jubbaland hadii lahaana waxaan jeclahay in ciyaaraha aan qabto ciyaaraha ugu adag oo kale Hegan iyo isku filan oo kale kulan derbi oo dad dawladda hoose dekedaha oo kale Kasiima iyo dekedaha oo kale waa ciyaarahaas aad u jeclaan qabto waayahay Saciid Cabbaas marka laga hadlayo dabcan qof kasta oo kamid ah bahda sportsku waa ku soo dhacaysa inuu kamid yahay garsoorayaasha ugu tiirsan waqtiga Jubbaland iyo Soomaaliya waqtigan adiga ahaan maxaa kugu dhaliyay inaad garsoor noqoto adoo marka burburyaha u ciyaaraya kooxo kala duwan oo gudaha Jubbaland niyo sababaha igu dhaliyay waxaa kamid ah ishaan garsoor inaan noqdo waagaa garsoor ku soo biiray garsoorayaal fiican way jireen garsoorkana waa laf dhabarta kubadda cagta waa garsoor uu si jirin boon lama ciyaari karo waxyaabaha igu dhaliyay waxaa kamid ah niyo aniga dreamkayga noqday inaan garsoor noqdo aniga ku fikir inaan garsoor noqdo inaan gobolkayga aan garsoornimada si fiican aan dadka inaan tuso garsoora inuu tara uu leeyahay xushmad gooni ah oo dadka si playerada ayuu yar booni si u bilaawayaan in garsoorka qof yar iyo qof weyn uu bilaawi karo waxyaabaha igu dhaliyay kamid ahna waxay inaan gobolkayga aan tara dadka aan tuso Jubbaland garsoorayaasha ilaa in garsoorayaal tayala ay leeyihiin dad fiican oo ka soo bixi kara garsoorka inuu leeyahay waxyaabaha igu dhaliyay waxaa kamid ahayd waxyaabahaas oo kale kamid ah waxaa soo gaaray dabcan qaybihii dhexe waraysigana oo toddobaadkan waxaad marti ku tahay barnaamijka garoomada ciyaaraha telefishinka Jubbaland oo inta badan
lagu bidhaamiyo qofka hormuudka u ah sportska Jubbaland oo laguna soo saaro xogtiisa rasmiga ah dabcan waxaa ku garanaya taageerayaal badan iyo shakhsiyaad badan oo kubadda cagta sportska taageera Saciid Cabaas qof kasta wuxuu jeclaan lahaa inuu su'aal weydiiyo laakiin uu dhaho kulankee kuugu adkaa kulankee inta marka laga soo laabto maxaad isleedahay uu yahay farqiga u dhexeeya garsoorayaasha Jubbaland iyo kuwa caasimadda ka howlgala u diiwaangashan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed wallaahi tore farqi badan aa noo kala dhexeeyo nimankaas waa waxay matalaan Soomaaliya dhan hore matalaan aad iyo aad seminaarada isku daba joog u helaan inkastoo anaga la farkeena xataa seminar kasta oo la qabanayo waa ka qayb galaa laakiin waxaan sii jeclaan lahaa garsoorayaasheeda kale oo Jubbaland joogaan in seminaaradaas oo kale ay ka qayb galaan oo Muqdisho ay tagaan ama haddii si tagi karin xataa in gobolkeena loogu imaado oo seminaaro fiicanna la siiyo laakiin waxyaabaha nimankaas nooga duwan yihiin ugu dheeriyin waxaa ka mid ah inkastoo ayaga Soomaaliya matalayaan haddana macallimiin fiican ay haystaan oo garsoorka markuu ciyaarta qabanayo oo kale nin commissioner lahayo oo kale waxaa jira oo marka ciyaarta adiga aad qabanaysid oo kale boontiyo ku siinayo nimankaas oo kale xagga jooga anaga ma haysano commissioner marka waa inta waxyaabaha nooga fiican waxyaabahaas ka mid ah oo seminaarada iska daba joog helayaan iyo commissioneradaas iyo macallimiintaas iyo sharciga oo law of the game isla markiiba meesha update hore ka noqonayo anaga la farkeena garsoorayaasheena waa garsoorayaal fiican ku jiro oo tayo leh laakiin waxa kaliya oo naga dhiman waxaa waaye inaan helno nin macallin garsoore ah oo marka ciyaar aan qabanayno kale oo kor noo fadhiisto commissioner ah commissionerka wuxuu ka caawinaa ciqladaadka gashay isha waxyaabihii fiicnaa adiga aad samaysay isha inta boonti aad keentay ciyaartii aad qabanaysid waxyaabahaas kale ka caawinaya waayahay intaa marka laga soo laabto dabcan garsoore marka laga hadlayo way adag tahay in laga sheekeeyo oo marka gudaha garoonka uu galo go'aamada uu qaadanayo boqolkiiba 50 waa khalad boqolkiiba 50 waa sax marka isaga ciyaarta ka dhigi kara mid dheelitiran inta marka laga soo laabto maxaad kula talinayd garsooraha saaxiibada ah ee kulamada waaweyn qabta niyo garsoor hadda marka la lahayo garsoor waa inta maamasti inaad training wax kasta aad samayso waa inaad adiga aad diyaarsanta waa inaad ciyaartooyda booniga ciyaaraysa inaad ka alaymato badan tahay la rabaa oo ka dhaqdhaqaaq badan tahay waxyaabahan adiga booniga kubadda inaad markaas raacdaa la rabaa oo orado counter tahay oo kala jiro inaad markaas aad diyaarsan tahay reading the game waxa la jiro inaad gameka ciyaarta in akhrisaa la rabaa oo ciyaarta ninkan booniga ma tuur rabaa ma istaagi rabaa si adiga ninka booniga ciyaarana ka aqli badan tahay la rabaa waxyaabo uu sameyn karo mar waxaa dhici karta simulation inuu ku sameeyo ciyaartooydu inuu asoo penalty area joogo inuu istuura laga yaabaa ninkan ma istuuray contact ma jirin ninkan ma la riday inaa waxyaabo badan aa fiirin kartaa la rabaa waa inaa angle view inaa haysto movement fiican decision fiican aa gaari kartaa la rabaa intaas marka waxay ku imaanayaan waa inaa fitness fiican haysto waa inaa u diyaarsanta gameka markaad inta laga soo laabto dabcan marka laga hadlayo in xidigaha qaarkood waxaa jira ciyaarina inta badan khayaalooyin badan sameeyo garsoorka uusan arkaynin adiga maxaa kaa caawin inaad waxyaabaha qaarkood aragto weliba aad u adagtay in la arko waxyaabaha qaarkood waxaa kaa caawin karo oo ii sheeg fitnesska kaa caawin karo haddii adiga ordi kartid kubadda 7 tilaabo 9 tilaabo ugu yaraan hadaa u jirto okay wax kasta waa clear oo arki kartaa angle view hadaa haystid oo macnaheedu oo playerka oo attackerka iyo defense-ka markii ciyaarayaan contact ay sameynayaan si fiican contactgaas oo arkaysid leela boonigan rigooro waa dhigi karta go'aan fiican aa qaadan karta waxyaabaha tar badan ka caawin karo waa movement-iga iyo calaamadayaashaada oo assistance ku ah oo waxyaabaha aad arki weyso oo ku sheegi karo waxyaabahaas ka mid ah marar waxaa jirta inta badan iskhilaafaan garsoorka iyo labada calawada ama calawadaha midkood inta kubadda offside oo garsoorka sii daayo taasoo kale sideeba garsoorka u gudbi karaa maadaama aad tahay nin tababaro badan soo qaatay waayo aragna u ah garsoorka niyo hadda aniga waxaa dhibaatadaas ma arkin calawada iyo garsoore isqabsanaya weli garoonkan kuma arkin anigana ma iqabsan arrintaas laakiin waxyaabaha kaliya oo laga soo gudbi karo waxaa waaye ciyaarta intaysan bilaaban ka hor afarta garsoore labada calawadaha iyo garsooraha iyo commission iyo ninka photo officialka match waxaa la sameeyaa match analysis waxaa la sameeyaa ciyaar before the game ciyaarta ka hor in afarta qof isku imaado qof kasta garoonka meesha uu ka leeyahay iyo systemka shaqada uu qabanayo iyo qof kasta shaqadiisa isku xushmeenayo in laga wada hadlaa la rabaa haddii arrintaas aan laga wada hadlin ciyaartiin waxaa ku imaanaysa qalqal iyo dhibaato badan ku imaanayso waayo waxaa ka mid ah hayaha wuxuu ii sheegay priority number 1 wuxuu leeyahay inuu offset dhigo offset cad hadduu fasaxo iyo haddii uu saxaba asaa ii sheegay qaladka saas kale asaa laga xisaabtama garsooraha haddii offset la fasaxo waxba waxba ma qaban karo waayo ninkan dhexduu taagan yahay wuxuu ilaalinayaa 2 qof oo istaabatay foul dhacay haddana kuma darsan karo shaqadii inuu qabtay ii sheegay oo calan wade oo offset ma ilaalin karo
marka wixii offside ah nin baa iskale oo shakhsigiisa sabab qaladkeeda lagala tashanaya laakiin wixii kale oo penalty area iyo waxyaabahaas oo kale nin yellow card si nin booni haranti waxyaabahaas oo kale waa garsooraha laga tashanaya laakiin discussion wax lahayn ma jiraan badanaa discussion waa sameynaa anaga waxaa jira go'aamo ay ku midaysan yihiin garsoorka oo kale salaam kubad oo kale ciyaaryahanka intuu lugta la galo kadib soo laabto oo kale oo garsoor intuu calanka taago markuu arko inuu soo noqdo iska dhigo garsoorka inuu ciyaarta sii wado garsoorka uu dhigo oo kale ma taasoo kale ma jirayso haddii marba calanka la taago oo offside ay noqoto ilaahu may offside ka bas been ha ahaato ama run ha ahaato ishaag automatically garsooraha waxaa la inuu film yeelo offside ku dhigo kooxda offside ka gashay laga dhigo waayahay adiga ahaan hobbigaaga marka laga soo laabto ma jeclaan lahayd inaad noqoto garsoorayaasha ku shaqeeya barnaamijka inta badan hadda caalamka si weyn lagu hirgeliyay far oo caawiyaha garsooraha oo inta ugu badan laga isticmaalo qaaradda Yurub niyo aad baan u jeclahay barnaamijka inaan ku shaqeyno waayo barnaamijkaas wuxuu ka caawinayaa waxyaabo badan oo adiga aad arkaynin khiyaanooyin ciyaartooyda sameyn karaan offside-ka qaar oo gool la dhaho haddana gadaal laga soo celiyo niyo barnaamijkaas aad baan u jeclaan lahayn inaan ka qayb qaato barnaamijkaas oo garsoor aan ku qabto aad baan u jeclahay barnaamijkaas maxaad ku codsan lahayd xiriirka kubadda cagta ee dunida ee FIFA niyo xiriirka kubadda cagta FIFA dunida waxaan ka codsanayaa inay Soomaaliya ishaag si fiican loo fiiriyo oo garoomo fiican loo dhiso gobolada sida ishaag anaga hadda garoonkeena si fiican u dhisin waxa laga maqan karaa tarabuunka iyo in la wareejiyo oo silig lagu wareejiyo waxyaabahaas kale in nagala caawiyo aad u jeclaan lahaa waayahay dabcan waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka garamada ciyaaraha TV-ga Jubbaland oo toddobaadkan markaas soo martuna waa garsoore Saciid Cabbaas oo kamid ah garsoorayaasha loogu jecel yahay gobolka Jubbada Hoose guud ahaan geeyiga Soomaalida waxaana garsooruhu markaasi aan inta ugu badan ka wareysanay tababar uu kusoo qaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka hor inta aan la furin tartanka maamul ee gobolka Banaadir degmooyinka ka dhisan oo uu markaasi qabtay qaar ka mid ah kulamadii ugu adkaa waxaana garsooraha markaasi aan ka wareysanay muhiimadda isaga ay u leedahay inuu ka qayb qaato kulamada noocaas oo kale ah oo ka dhaca caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho waxaana garsoorahan loo diiwaan geliyay inuu ka qayb noqdo garsoorayaasha Soomaaliyeed ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya u diiwaan gashan kuwaas oo xiriirku markay u baahdaan inay isticmaalaan kulamada qaarkood ay isticmaali karaan waayahay Saciid Cabbaas waxa uu ka mid yahay garsoorayaasha Jubbaland oo qabta kulamada qaarkood waxaana markaas inta ugu badan lagu xasuustaa kulamada kala duwan ee uu ka qabtay Jubbaland oo ah kuwoodii ugu adkaa dabcan waxaa jira ciyaaryahanno da'yar ah haddaba waxaa socda tartanka iskoolada oo bilowga ugu horreeyay haddana khaldaneen daafurkiisii adigu aad qabatay labada kulankii labaad qabanin labada kulan midkood ka qabatana hadda aan aad u cadeyn karin laakiin kulankaas qabashadiisu adiga ahaan maxaa kaaga dhex baahay da'yarta noocaas iyo mustaqbalka ay kubadda cagta ku leeyihiin maadaama aad tahay garsoore waayo aragga inta iyagu ay arkaan in ka badan adigu arki karaa wallaahi kulanka ugu horreeyay furitaanka anaa qabtay ciyaalkan yararka waa ciyaal yar waayo da'dooda aad u yar tahay waxaa garanaysaa isha sharciyada qaar inaysan garanayn foor gacanta si loo tuuro kale isha offside-ka kale inaysan fahansanin mararka qaarkood adoo garsoora waxaa loo baahan inaa ciyaartooyda sharciga ku saxdo oo dhahdo warsaan looma tuure saan samee haddeertan sharciga cusub haddeertan oo aan ku hirgelin waxaa ka mid ah in dishotaa dhexdiisa lagu ciyaari karo oo goal lane-ka boorteedii difaaca dishotaa dhexdiisa ugu baasi karo anigoo garsoora intaan umadan u sheegaya waxaan dhabooniha tuurin dhexdan isku baasi kartaan foor gacanta saan looma tuure laba lugood inta isku dhijisad foor gacanta si sax u tuur marka waxaa keenaya ciyaalkan ciyaal yar waay waqtiga ciyaari karaan 45 daqiiqo mise ciyaareen ciyaaraha waxaan ku qabanayna 40 daqiiqo dheelaya marka waxyaabaha ka mid ah waxaa ciyaalka sharciga si fiican u fahansaneen oo garoon iska soo geliya annaga marka waxaan u noqonay macallin waa u nahay garsoorna u noqonaa labadaba u nahay marka dabcan marka laga hadlayo in iyagu ay soo baxaan garsoorku qayb lixaad loo ka qaadanaya ها garsoorka waay raggan ayuu sharci garanayna garoonka la keenay kii markaa maanta ka saxda foor gacanta warsaan looma tuuro bri waa soo saxay oo hore u socda arkaysa marka anaga marka garsoorayaashina Jubbaland hadda waxa isha shaqada ay qabanayaan oo ku soo kordhado ciyaaraha iskool waxa kamid ah in ayaga macallin u noqdaan ba isha dhalinyaradii oo ilaahan foor gacanta ka saxaan isha buuniyaasha qaarkood oo kale in direct free kick kale ciyaartooyda ma kala garanayaan in laga saxo qaabka isha toran marka la soo galay garoonka kale laga saxo jag abka ma garanayaan waxa laga baaraysa wax ma garanayaan waxyaabo badan marka waa aad u dhib shaqada marka shaqa aad u dhib badan shaqada kale way nooga dhib badan tahay hadii si loo fiiriyo nooga fudud waayahay ugu dambeyn marka laga soo laabto intaas iyo tartanka iskoolada ciyaaryahanada iskoolada ciyaaraya qaarkood haddaba kula taladina garsoorka ay kula soo biiraan xirfadda waa jiraan hadda ciyaalo badan hadda aan diiwaan gelina jirto oo 20 jir ah oo iskoolada sanadkan ka qalin jibinaya iyo kuwa ka qalin jibiyo oo jaamacad dhigtaan kuwaasaan rabnaa inaan tababar garsoor u noqono haddeertan waa booni football markaas uu sii bedelaya annaga garsoorayaashana waxaa loo baahan garsoorayaal yar oo da'yar in la helo oo qabtaan iskoolaadka kala qabtaan xaafadaha kala qabtaan hadda annaga waxaa arkaysaa anaga meel kasta ku dhex jirno haddii saar aad tahay haddii oo tartanka ay sheegeen series B wax kasta tahay marka haddeertan barnaamijka gudoomiyaha wado waa la diiwaan geliyay
qalabkooda xataa waa loo diyaariyey marka waxaan rabnaa in ciyaaraha iskoolaadka markay dhammaadaan kadib inaan tababar fiican siino oo sharcigana aan barno insha allah hadduu ilaahay yiraahdo. ugu dambeyn dabcan waxaan soo gaarnay gunti iyo gunaanadkii barnaamijka garamada ciyaaraha gaar ahaan waraysigii uu barnaamijka toddobaadkan kula yeelanayay oo ahaa in xirfadaada garsooranimo iyo waxyaabihii kugu soo kordhiyay waxay kaaga dhigan inaad ka qayb noqoto garsoorayaasha Soomaaliyeed u diiwaan gashan FIFA iyo Soomaaliyaba. ugu dambeyn maxaad ugu baaqi lahayd xiriirka kubadda cagta Jubbaland, maxaad ugu baaqi lahayd garsoorka adig kula midka ah qaba baahiyaha iyaguna inaysan nasiib tababar helin garsoorka jecelnay heerka maanta ay joogto iyaguna gaaraan. horta asxaabta aan ka tirsanahay garsoorka waxaan ugu baaqayaa in horta training la sameeyo markasta update in la iska dhigo sharciyada buugga all of the game ka la iska aqriyo. xiriirkeena kubadda cagta ee Jubbaland waxaa ugu baaqayaa inay shaqada hadda ay wadaan shaqo fiican hadda wadaan inay shaqadooda si laba jibaaraan oo shaqo fiican oo bulshadoodana usii qabtaan maadaama haddeertaan ay shaqo fiican bay isii hayaan waa kusii ammaanaya ciyaaraha iskoolaadka oo kale inay qabtaan waa aad iyo aad u mahadsan yihiin. xiriirka oo kale maxaad iyagana aad dareen ahaan u dhiibi lahayd? niyo wallaahi xiriirka waxaan dareen ahaan u dhiibi lahaa in markasta ay qabtaan ciyaarahan iskoolaadka oo kale ciyaaraha ii sheegeen grassrootka oo ciyaalka yararka oo kale waxa soo baxay markas waxa ugu muhiimsan bulshada ciyaalka yararka soo baxay ugu muhiimsan sportiga hadda seeraha oo kale wajita sanad la qabtaa laakiin waxaan jeclaan lahaa in lagu soo daro xiriirkeena waxaan ka jeclaan lahaa ka codsan lahaa in ku soo daraan ciyaalka 10 jirada ama 12 jirada inay ciyaaro u qabtaan kuwaas aan aad u jeclaan lahaa oo kuwa yar qiimeen kuwa yarka aad loo qiimeeyay. waa tahay aad baad u mahadsantahay kaas waxa waa Saciid Cabaas oo markaasi toddobaadkan barnaamijka martii ugu asla markaasna inta ugu badan aan uga hadlaynay faa'iidada markaasi ay u leedahay garsoorka inay tababarro joogto ah helaan iyadoo dhanka kalena ay markaasi garsoorku markasta u baahan yahay tababarro joogto ah iyo waliba training kala duwan si markaasi ay qayb uga qaataan xirfadooda garsoornimo ay horumariyaan iyadoo dhanka kale ay wuxuu noo sheegay inay akhriska badiyaan oo buugga ah law of game oo inta badan buug muhiim u ah garsoorka iyo waliba xeerarka kala duwan ee kusoo kordha dunida kubadda cagta taas oo u fududeynaysa in garsoorku uu xirfadiisa kordhiyo kobcana uu ka sameeyo dhanka shaqadiisa iyadana waa markaasi muhiim u tahay dhanka garsoorka. waxaa kale oo naga warbixiyey tartamadii kala duwan ee kasoo qabtay caasimadda dalka Muqdisho taas oo muhiim u ahayd xiriirka kubadda cagta Jubbaland iyo guud ahaan dadka deegaanka reer Jubbaland maadaama isagu uu ku metelayay Jubbaland oo markaasi magaca Jubbaland kor ugu soo qaaday caasimadda dalka oo halkaasi ahaa meesha uga qayb galayay tartankii gobolka Banaadir degmooyinkiisa oo dhowr kulan oo ka soo qabtay garsoor Saciid Cabaas taasoo keentay in loogu doorto sida wanaagsan oo u soo qaatay tababarkii iyo waliba kartidiisa iyo hal-adeegii uu la joogay Jubbaland.